dowladda qarsoon ee Bavaria aadanaha shaydaanka la shaqaystay ee hantida adduunka taaliya siyaasadda badaha gadaashiisa ka maamula kuwii kala geeyay diimaha iyo dowladnimada iyo kuwa sheekadooda beenta u badani dunida ugu faaftay sida aan xuduud lahayn kooxdan la yiraahdo Illuminati-ga ama Maasoniyadda ayaynu muuqeenan ku eegaynaa halka ay ka soo bilowdeen taariikh ahaan iyo meesha haatan sheekadoodu ku dambayso 1776 ayaa gobolka la yiraahdo Bavaria ee dalka Jarmalka waxaa ka soo baxday koox yar oo u dooda in ra'yiga iyo ficilada aadanuhu ku salaysnaadaan caqli iyo aqoon halkii ay diin ku jaango'naan lahaayeen in kor loo qaado xuquuqda xorriyadda dadka iyo in laga xarig furto kaniisadaha Catholic-ga iyadoo isla goortaas kooxdan iyo wadaadadii kaniisadaha loolan xoogani ka dhex qarxay isla xilligaas Professor Adam Weishaupt ayaa bilaabay inuu dadka baro falsafada cilmaaniyadda goor horeba caqabado waaweyn ayay wajahday talaabada Adam ha yeeshee waxa uu go'aansaday inuu aragtidan ku dhex faafiyo kooxdan qarsoon kuwan la yiraahdo Secret Society-ga midda oo door weyn ka qaadatay afkaartii kooxda ee ka soo horjeeday kaniisadaha isla falsafadiistahan Jarmalka ayaa kooxdan u bixiyay magacan Illuminati waxaana uu isla waagaas ku aamiyay inay iskaashi la sameeyaan koox kale oo ay afkaar ahaan isu dhawaayeen ha yeeshee iyadu la'ayd wado ay aragtideeda ku koriso kuwa oo iyana la oran jiray Freemasons wixii inta ka dambeeyay Illuminati-gu waxa ay noqdeen koox dhaqaale ahaan iyo saameyn bulshada ahaanba xoogan Weishaupt-na waxa uu sii waday dhismaha kooxdiisa oo ay weheliyaan Freemasons xubnihii ugu horeeyay ee Illuminati-gu waxa ay noqdeen guddiga sare ee kooxdan guddiga oo ay ugu horeeyeen Adam Weishaupt iyo Bernard Adolf oo isagu ka yimid Freemasons-ka ka oo isagu noqday midka fikradaha Illuminati-ga dadka ka iibiya isla markaana soo xiro geliya shakhsiyaadka cusub midda oo sahashay in tirada kooxdani kobcdo waxaana 1784 tiradooda lagu sheegay ilaa 600 oo qof kuwa oo ay xubno ka yihiin siyaasiyiin saameyn leh iyo aqoon-yahano halkii ugu horeysay ee si buuxda afkaarta dowladnimada ee Illuminati-ga looga taageeray waxay ahayd Mareykanka oo madaxweynihii dalkaas ee Thomas Jefferson ayaa falsafada Professor Adam ee ah in la kala sooco dowladnimada iyo diimaha ugu yeeray mid dhiirigelin leh halka ay sii kordhaysay cabsida boqorradii Yurub iyo wadaadadii kaniisadaha ee afkaarta kooxdan waxa sii xoogaystay sheekada qarsoon ee Illuminati-ga iyo saaxiibadooda Freemasons-ka waxna ay noqdeen kooxo hanti adduun oo badan haysta midda oo ay ku socodsiin karaan afkaartooda halkii ay doonaan ku faragelin karaan mid u cadaatay wadaadadii kaniisadaha iyo madaxdii dowladaha qaar ayaa si ahayd in kooxdan yihiin kuwa doonaya inay xididada u siibaan caqiidada iimaanka iyo akhlaaqda bulshooyinka kuwan ayaana siyaabaha lagu qeexo ficilada kooxdan halka ay iyagu ku doodaan in kaliya falsafadoodu tahay kala geynta diinta iyo dowladnimada xoogaysigooda dhaqaale iyo saameyneed waxa uu sababay in lala xiriiriyo ridida boqortooyooyin iyo qaar ka mid ah dowladihii Yurub kacdoonkii Faransiiska ee 1789 ayaa la wariyay inay kaalinta ugu weyn ku lahaayeen ogow falsafadii Professor Adam Weishaupt ee ahayd kala geynta diinta iyo dowladnimadu wadanka ay sida ugu xoogan uga dhaqan gashay waa kan Faransiiska waxa dhab in kooxdani weli jiraan xoogan yihiin oo saameyn ku leeyihiin siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka sidaan horay u nirina ficiladoodu waxay u badan yihiin la dagaalanka caqiidooyinka iyo akhlaaqda aadanaha mid kale oo la sheego ayaa inay xiriir la leeyihiin shaydaanka muuqaal kale ayaynu tanna ku dhugan doonaa